sida aan wada ognahay jabhadani xilligan horta lama asaasin xilligan ka horeeyay ama xilliyo aad u fog bay jabhadani soo shaqeynaysay waxa weeye maaragtay hagardaamooyin kaga yimid maamulka SNM iyo dabanadii ay u qooleen bay maaragtay iyo dib u dhacyo ku yimid awgeed bay jabhadani waxa weeye maaragtay hawlaheedii iyo mas'uuliyaddii saarneed ay u gabeen sidaa darteed annagu waxaa la oran karaa jabhadani waxa weeye maaragtay anagu waxa la oran karaa dib u cusboonaysiin ama waxa weeye inaanu boorkii ka jafnay oo aanu dib uga shaqaysiinay baa la dhihi karaa jabhad hadda cusub maaha waa jabhad waxa weeye maaragtay dibindaabiyooyinkii aanu soo sheegnay iyo lugooyooyinkii loo geystay waxa weeye inay ka soo kabsanaysa haddeer baa la tilmaami karaa marka taasi saasaanu leenahay jabhad cusub maaha waa jabhad gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ay lahaayeen dibna boorka looga jafay Cabdirashiid Xuseen Cali oo ilaahay la sameeyay jabhadan haysan dhaqaalo ciidan meel aan ku tirsanayn xageed ka soo galaa dhaqaalaha iyo ciidanka iyo tababarada siiso yeedii dadka u sheegay mudane wariye sida aad ogtahay dadka ku nool gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxa weeye guud ahaan dal iyo gudaba waa dad hodana waxa weeye kana soo horjeeda waxa weeye gumaysiga iyo waxa weeye maaragtay jabhadda SNM ee ku haysa gumaadka dadka SSC marka waxa la dhihi karaa waxa weeye maaragtay jecelna waxa weeye xornimada iyo diidanna waxa weeye maaragtay gumaysiga iyo wixii lamida dadku waxa weeye ayaga waxa weeye waxay la garab taagan yihiin dal iyo dibadba guud ahaan waxa weeye maal guud ahaan waxa weeye qadiyadan waxa weeye waa dadkii maaragtay nagu dhiirigeliyay guud ahaan in waxa weeye maaragtay dib loo maaragtay cusboonaysiyo loogana shaqaysiiyo dhawaan waxaad tababar soo xidheen ciidamo ka tirsan maamulkaaga Soomaaliya way ka hadashay wasiirka hawlaha guud iyo xildhibaan Maxamed Shaac Booriso ka soo jeeday halkan baa deegaanka Baadhadeen uma ogolaan in uu howlo dagaal dib loogu taas waxaanu kaga jawaabaynaa dadka kolley shakhsiyaadka maaragtay guryaha reeraha leeyihiin fadhiya kolley haddeer wax badan aan ka oranaynaa kolley ma jirto dhibaatada iyo fidnada ka taagan goboladani waxa weeye maaragtay qaybta koobaad bay kaga jiraan waxa weeye maaragtay deegaan aysan maaragtay aysan waxba ka ahayn waxa weeye aysan joogin waxa weeye maaragtay inay si maaragtay muhbala ama malaawala uga hadlaan oo ay waxba aysan taladeeda ku lahayn waxa weeye maaragtay kullayda maaragtay waa wax meesha ku jira inay ayagu yimaadaan qoys iyo qabiil iyo waxa weeye reer inay deegaanada iyo buwada ku yimaadaan waan aragnaa oo dadku waa beelo weey laakiin Cabdirashiid su'aasha yar ku darsado jabhadu deegaanada kale ee gobolka Sool Sanaag iyo Cayn maxay ku qorshaysan goboladu horta guud ahaan goboladu jabhadu waxa weeye maaragtay way ku dhantahay haday Sanaag noqoto iyo haday Sool noqoto iyo haday Cayn noqoto xiriirka bulshooyintana waxa weeye maaragtay aad buu u wanaagsan yahay waxana waxa weeye maaragtay dad gaar ah ama dad ashqaas ah waxay wataan maaha waa guud ahaan waa wax bulshada ka soo baxay odayaasha haday noqoto cuqaasha haday noqoto isimada haday noqoto siyaasiyiinta haday noqoto bulshooyinta haday noqoto waxa weeye maaragtay guud ahaan waa wax umadu waxa weeye ay u dhantahay annagu waxa weeye maaragtay in naloo wakiishay oo qadiyadan hoggaankeedii iyo in naloo wakiishay mooyaane qadiyadan bulshooyinta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ku dhaqan baa waxa weeye maaragtay ku midaysan waxa weeye maaragtay degmo kasta iyo gobol kastaana waxa weeye jabhadu way gaarsiisan tahay waxa weeye guud ahaan qadiyadan waxa weeye maanta waxa weeye dib maaragtay boorka looga jafay loo cusboonaysiiyay in la shaqeeyaan waxa weeye waa awoodda kaliya ee waxa weeye maaragtay dadka sida xun u fakaraya waxa weeye maaragtay ummadan ka hor istaagi karta waa awoodda kaliya ee maanta ku kala nabad gali kara waa ciidankiini hubka iyo agabka waa agabkiini deegaanka waa deegaankiini waxa weeye taageera oo waxa weeye maaragtay si aad idinna ugu kala nabad gashaan waxa weeye cadawgana aad isaga celisaan waa inaad si buuxda wada taageertaan